السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علماء hadday joogto waxay ahayd in iyagu tilmaamaan calaa kullin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa aayadda sheekhu akhrinayay ee rabbi uu leeyahy kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. waxaa laydinku waajib yeelay soon sidii dadkii idinku horreeyeyba loogu waajib yeelay lacallakum tattaquun ay kay tattaquu si ay ilaahay subxaanahu wa tacaala uga cabsataan ama cabsida rabbi a u gaadhaan. ramadaan fadaa'isheedu in badan baa maqasheen baan rajaynayaa. waana bil kow ah misfaat ruuxiya. waa biluu qofka muslimkii u sahay xidha inuu dembiga iska maydho. waxaa inoogu dhib badan ee dunida inaga haystaa waa dunuubteenna. aakhiriya adduunbana waxaa laynagu abaal marinayaa inta badan waa dunuubteenna, wixii aan rabbi inaga dhaafa mooyaane. haddaynu heeryadaa iska rogno oad xalay dhalaydee soomaalidu sheegaysay ka noqotay dunuubta, waa waxa ugu weynaa alla loogu dhowaado. أحد العلماء waxaa la weydiiyey tasbiixda iyo istikfaarka keebaanu horraysiinaa bay dhaha ama keebaa fadli badan. markaasaa wuxuu yidhi dadka dunuubta ku badan tahayna istikfaarka u roon buu yidhi, dadkay dunuubta ku yar tahayna tasbiixaadka u roon. waayo waxay adigoo uskagle dee laysma cadriya buu tilmaamayaa inaad ismaydho oo marka hore uskaga iska rogtaabaa roon. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa ramadaan in ilaahay ku dhaafo ramadaan ilaa ramadaan wixii u dhexeeyay in ramadaanta lagu dhaafo. waxaa kaloo nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam habeen kastoo ramadaan soo gelayso in dadka badh laga xoreeyo naarta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigooda dhaafo. waxaa kaloo nebigu uu tilmaamay qofka sooma in ilaahay dembigiisa dhaafayo. waxaa kaloo nebigu tilmaamay qofka iimaanan waxtisaabana tukada habeenadaasi in dembigiisa la dhaafayo. waxaa kaloo lasoo tilmaamay qofka habeenka laylatulqadriga si gaar ah iimaanan waxtisaaban u kaca in dembigiisa la dhaafayo. idan ramadaan oo dhammi ama soonkeeda ha noqoto ama qiyaamuleelkeeda ha noqdo iyo salaadaha habeenkii la tukanayo ama habeenka laylatulqadriga ku jira ha noqdo, dhammaanteed inay tahay wax qofka muslimkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiga uu kaga dhaafo. dunuubtaynu galla waa tiro badantay, cibaadaadkaynu la nimaadnaana kuma wada filla. oo nebigu wuxuu tilmaamayaa salaad ilaa salaad baa dembiga lagu dhaafaa. haddana wuxuu nebigu tilmaamay jimce ilaa jimce baa dembiga lagu dhaafaa. haddana wuxuu nebigu tilmaamay bil ilaa bil baa dembiga lagu dhaafaa. waxaa laga yaabaa inaad su-aal isweydiiso oo salaad ilaa salaad haddii dembiga la dhaafay, jimcuhu muxuu maydhayaa ilaa intaasoo salaadood baad soo tukatay? ama jimco walba haddii dembiga la dhaafayo muxuu maydhayaa ramadaanta marka la gaadho? cibaadaadku aynu samaynaa ma aha sidii la rabay. nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam mid baa salaad tukada oo salaadiisa aanan helaynin ilaa cushuruha ama thumunuha ama tusucuha iyo wax la mid ah. idan waxoogaaga jajabkaa marka laysugu kaa biiriyo kolba inbaa lagaa dhaafayaa. hadday wada dhaafi kari weydo ta kale jajabkeedaa lagugu sii daraya in kalaa lagaa dhaafi. hadday ilaa jimcaha gaadhi weydo waa laysugu kaa biirin. idan waxaynu samaynoo dhammi perfect ma wadaha, halkii qimada ma gaadhsiisna, laakiin waa waxyaabo qofka muslimka hadduu ku dadaalo dhammaantood ilaahay dembigooda ku dhaafayo. dee maantana waaba ogtihiinoo qoladan caafimaadka ka warrantay iyo waxa kane dee asawm ilmutaqatic sooma maqashaan in badan intermittent fastingka sheegaan soonta googo-an iyo caafimaadka si wax uga taro. bale ilaa xad bay hadda tilmaamayaan. waxaan filayaa nobel pricekii 2016kii la qaatay oshua odaygii jabaniiska ahaa wuxuu ku qaatay soon bay ahayd.
وها قفك بني آدم كأي دفاعي سيو صار نوليسي شركي سيو عصبونيسي وحبضا إذا حلنا الدنيا آخرة بوت كفاية ليس الدون عافمات بتكه ليس توقو بدن لسالة الماميو آخرنا الدم بقى الغرفة وأنا كان بقول كنت المامي حديث قدسي إنه إلهي لي هي أعماشك الأردن بني آدم كاسكال الصون كمو يعني صون كسعر على ما إلهي لي وأنا أجزى به محل لو يجي بيع علماء ضيدها صون كإلهي باله كوا كلام إلهي باله صلاة بإلهي درتي واحد هذا وحي كبح سنت قاعدة ديها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 هذه نصوص تشكتي أي يدو كبح سنت بيد هذا وهذه وحيابا كانت تبلغ بالقوة بالمرينية إلى تضرب غلط شير لقارئيو يد واحد قاعدة ده ويكبح سنتي أجر كذا إلهي وما قرنا سبحانه وتعالى إذا نحن لنا وقت إنه أبا هنين ندير قرونه نك تاجر كاهي ودير قروبا موسم كا وحلقته صحيح كما كتاجر كاهي ده وقت يده وسيلة هي وحمد الله لقى قدنا يا أبو ألا بدن سوج من الاستايو كتلقلا qofka muslimka ahi waqtiyada dambiga xooga loo dhaafo inuu diyaar garoobaaba ku haboon acmaasha kale oo dhan uu iska fudaydiyo si uu camalkaasi u dhammaystiran karo marka bisha ramadaan inaynu ku talagalno oo intaan soo galinaynu u diyaar garowno u diyaar garowgeennuna inaanu noqon hurdo badan iyo fasax badan inuu noqdo juhdi badan iyo camal badan oo diineed inaynu la nimaadno dadka badba ramadaanta waxay ugu diyaar garoobaan bariiska reerku cuni jiray bariiska tira badan hilibkii la cuni jiray hilibka tira badan kama had diyaar garowga ka waramaya ramadaan ba waxa loo soomeeyay in la gaajoodo in cunada la sii badsado looma xoolo guranaynin waxaan rabnaa inaynu diyaar garowno cibaado badan inaad samayso bisha inaad cibaadaysato oo isku daydo inaad ka bixi karto bisha iyadoo ilaahay dambigaaga dhaafay وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين